dhinaca kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shir jaraa'id uu qabtay galabta wuxuu ku sheegay in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay marin habaabinayso siyaasadda Soomaaliya iyo arrimaha amnigaba. madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu sheegay in banaanbaxaasi uu dhici doono isku day kasta oo ay dawladdu samayso inuu ku baajisana aysan suurtagal noqon doonin, isagoo madaxda dawladda ugu baaqay in ay sharciga ilaaliyaan. nimankan waxay wadaan waa ila meerayso hadda inta soo wadeen yani dhaqanka dawladnimada iyo waxa xataa inaan la dhowrin taliyaashii ciidamada la soo joojiyey xildhibaan maad soo sheegaa waaye war taliya ciidan oo adiga COVID-19 maxaa kaa galay COVID-19 shabaab miyaa qarax muusitaa maya jidka buu qarxinay aaway dalkii iyo muxuu ahay tuulooyinkii iyo degmooyinkii gobolladii dhulkii maxaan ku ihahdaa cadowga ummadda Soomaaliyeed iyo cadowga duniyada dhan uu deganaa ee la rabay inaa wax ka qabatiin aaway kuwan maalin kasta guryaha ku duminayaan magaalada inta u soo galaan ay ku gablaminayaan aaway 4 sano la soo joogay ciidamada horumarina laga sameeyay inta laga dhacay xagga la yeeray amniga waa kari weyna 10 jeeran aan ku jaalay waxaan hal tuulo oo shabaab laga xoreeyay oo maalintii maxamed cabdullaahi uu imaanaya shabaab haystay oo laga xoreeyay ama markii ugu horreeyay shabaab laga xoreeyay hal soo sheego hal tuulo degmo ma gobol ma dawlad goboleed ma ciidankii inuu xoogaysto qurxonaada maxaa lagu gartaa inay wiilasha Soomaaliyeed garaacaan oo ay dagaal sokeeye ka shaqeeyaan oo ay dhulka inta siixaan qoryaha buudadkooda ku baadkooda ku garaacaan miyaa horumarka ciidamada ma inaa maxaa ay lagu qaado diyaarada lagu daabulo ee dhulka carrada jirdeeda la geeyo ayagoo dhulka mari karin oo shabaab taaka dhulka u joogo inay tagaan dagaal sokeeye reer isdirsan iyo balaayadooda ay dhex cararaan miyaa horumarka ciidamada laga gaari waxaan leenahay nimankaas walaalaha waxaan u sheegaynaa dadka caqligoodii waa ku cayaarteen waana la idin fahmay markaan ka bacdi caqliga dadka kuma cayaari kartaan waxaasi way dulqaadayna ka ahayd ee dadka caqli darro kama ahayn ee dulqaad ay muujinayeen iyo samir iyo adkaysi iyo ama rajo dawladnimadii ay maanta muxuu ay tallaabo qaada ay ka ahayd caqliga dadkaad ku cayaarteen curfiga dawladnimada iyo maxaan ku ihahdaay nidaamka ku cayaarteen wanaagii Soomaaliya iyo socoshadii Soomaaliya ku cayaarteen ha u sii naqanina arrinta banaanbaxa waa laga dhawaajiyay waa dastuuri dadkaan xaq u leeyahay haddaadan codkaaga ku dhihi karin kana waa diidanahay kana waa ogolahay maxaa ku dhahe qori iyo madfac maan soo qaadanaynaa dadkaani waa ka yimaadeen waa ka bislaadeen ma rabaan maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wiilasha yaryarka ee meesha la jooga ee dharka gashan dadka ha ku riixina dhinacay ka yimaadeen ha u celinina waa ka yimaadeen uma socdaan ma ogola annagaa la joogno ku dhex jirna ka tirsan aadi mayna meel xun ma rabno cunfi iyo colaad iyo dagaal iyo dhiig Soomaaliyeed si sabab uu u daata ma rabno jidkaasaan maraynaa xaq dastuuri ah waxaa la idinku leeyahay ammaankooda inaad sugtaan dadka soo baxay ilaalisaan cadowga la sheegay ka ilaalisaan wixii tasiilaad u samaysaan jidadka maritaankooda u fududaysaan laakiin maanta inaa idaacadda usoo hor istaagtaan dadkan waxaynaynaa sida uu sheegay xildhibaanku waa dembi adiga kuu gaar oo gelaysid meeluu dugsan yahayna ma leh dadku waa mas-uuliyiin waa waxgarad waa maxaan ku ihahdaa indheer garad dhammaantood waa kuwa in yar ayagoo ah meesha isugu yimid oo salka u wada xiran yahay oo gacmaha muxuu ahaay wada marsaday muxuu ahaay sanitizerkii qof walba sanxirkiisu soo qaadanaya intii aan wadanina maalintaas meeshaa lagu siinayaa intii isu socdaan jidka iyo gacmo dhaqu waa yaallaa meesha iyo sanitizeriska dadku waa imaanayaan ilaahay idinkiis maalinta jimcaha meesha waa la isugu imaana dadka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho deganna waa imaanayaan kuwa gobollada jira waa og yihiin waa la wada sugayaa maalintaas waa beriya ka dhiman waa tegaynaa haddii alla yidhaah waa tegaynaa ma baaqanayno ma hakanayno annagaa idinka horeyno meesha joogno ku horumarayno kooda dheg jala qof siinaysa malaha run laguma baran dadka inay wanaag u fanaan laguma baran dadka inay ixtiraamaan laguma baran dawladnimada inay dhowraan laguma baran warkoodana qof yeelaysa male la dhagaysan maayo ha xishoodaan sharciga ha dhowraan dadnimada iyo dhaqanka suuban ha ilaaliyaan dadka xuquuqdooda ha ilaaliyaano xuquuq damboo lagu tumanaa waa la diiday ma jirto waxaan leenahay dhallinyarada Soomaaliyeed hooyooyinka culamaa udiinka bulshada rayidka dadkoo dhan
oo magaalada muqdisho gobolka banaadir ku nool barxaddii daljirka daasoonaa noo ballana maalintaas dhammaantiin waxaan leenahay ka soko maalintaas ka hor qofna ilaahay ma dilo taariikhdaas samaysmaysa qof walba soo goobjoog uga ahaado oo u yidhaahdo maalintii daljirka waa tii aan joogay 19 bishii February waataan daljirka taagnaay qof walba inuu yidhaahdo rabaa oo taariikhda meel ka gala daalay guuleysta waxaan noo ballana meeshaas qowlihiinii gaargaarka ay haysateen sidiina u haysta abaabulka sidiisa u wada maxaan ku yiraahdaa hebela xagga ka hadlay iyo hebelooba inta ka hadlay niman la garanayna meesha ka hadlay ee warkooda kuma jiro wax qalad oo sameeyo hayna malaha xuquuqdeena iyo waajibkeena iyo waxaan xaq u leeyahay ku taaganahay ka xishoomayno kana cabsamayno iska ilaaliya dacaayadaha raqiiska ay wada fiiri dadkan maalin walba qof inuu yimaado oo dadka ku aamusiyo kelmad dadka lagu aamusina in la sameeyo waa dhaqankii diktatoriyadii kacaanka laga keenay waa kacaan diid iyo afmeeshaar iyo dib u socod iyo qaran dumis iyo maxaan walax jinnoon la garanayna dadka la dhihi jiray si aanay ra'yigooda u cabirin oo aanay u hadlin oo markay hadli tagaan loo yiraahdo kacaan diida tahay dib u socda tahay maxaan ku raadayay afmeeshaar tahay loo yiraahdo shib u yiraahdo qof dhaqankii waa soo minguurina dagaaladii safar mugay socdaan waa maanakobiya iyo waa manifesto iyo waa sulh iyo waxaan kelmadda sulh xataa kelmad wanaagsan xataa si waxa loo yeelo waa magac xuma loo yeelo waa noo maalintaas hadii alla yiraahdo waana wada joognaa annagaana idinkaga horeyna meesha hadii alla yiraahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh noolaada adinka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayuu kaasi wuxuu ka hadlayay banaanbaxa la filayo in toddobaadkan mucaaradku ay ka dhigaan Muqdisho gabi ka dheer guri ku duway gacan sugtiyo gaf lagu sixiyo godob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geed ka baxay godin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geed ka baxay godin ku taal gadowya isku maran geel la jira guux u baxay guluf ku tegay abin wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka xog waraysiga maqlaysaan oo idinkaga imaanay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho Dr. Umar Abduqaadir Ahmed Fiqi oo kamid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu baaqay in uusan carqaladeynin banaanbaxa la filayo in toddobaadkan uu ka dhaco Muqdisho wuxuu sidoo kale madaxweynaha ugu baaqay in ciidamada qaranka uusan u adeegsanin caaburinta dadweynaha haddii taas ay dhacdo waxa uu sheegay inay noqon doonto maalinta uu bilaabanayo rabshadaha Soomaaliya kaasi oo marka ugu dambaysa isu bedeli kara dagaal sokeeyo oo ilaa madaxtooyada gaara horta waxa runtaa weeyaan oo waxa jirta walwal fara badan walaac fara badan cabsi fara badan dadka maaragtay vulnerable-ka ama se nugul haddii khilaaf yimaado ama khatar u muuqatana inay meelaha ay ammaanka ay isleeyihiin amba malkartaan ay u barakacaan waa wax dabiici ah laakiin xaaladda maanta taagan waa xaalad la saadaalinayay inay imaan karto haddii wixii lagu heshiiyey iyo doorashadii lagu heshiiyey ay suuroobi weyday marka waxa arrinta hadda caawa taagan waa arrin ka dhalatay xukuumadda waqtigeedu dhammaaday iyo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday oo aqbali waayay inay doorasho dhacdo sababtaasaa kalifaysa doorashadii baaqatay iyo doorashadii dib u dhacday iyo heshiiskii madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ka suuroobi waayey inuu hoggaankeedii iyo dadnimadeedii yeesho oo uu la heshiiyo dadka wax kala dhexeeyaan sababtaas ayaa waxay keentay in khilaafkii ballaafto in dadkii barakacaan in meel loo socdo la garan waayo marka arrintan maanta taagan waa arrin la saadaalinayay oo xukuumadda iyo madaxweynaha xilligoodii dhammaaday ay u yihiin wixii ceeb ka dhacda iyo wixii dhibaato ka dhacdana anu waxaa shakhsiyan inay eedeeda iyo duruuf iyo wixii ka yimaada ay iyagu yeelan doonaan
waya marka waxa ugu weyn ee walwalka laga qabo hadda markii hore siyaasadda laakiin waxaad mudani ka soo dhawaatay toddobaadkan waxaa la iclaamiyay banaanbax oo musharaxiin kale oo golo mucaarad ah ay iclaamiyeen waa ku celceliyeen waa ka digeen in dhibaato dhacdo dawladdii bandoway soo rogtay waxaa la sheegay inaanay raalli ka ahayn dadkii waxay bilaabeen naftoodii la baxaan arrintan ka waran walwalka weyn abuurtay ee midda banaanbaxa ah iyo waxa is leedahay way sababi kartaa haddaanan dhinacyadu intee wada hadlaan dabcan haddii sharcigu shaqayn waayo oo sharcigii iyo wixii lagu heshiiyey la ixtiraami waayo oo nin uu isku dayo inuu awoodda dalka inta maroqsado si sharci darraa uu ku joogo waa la filayey waana la saadaalinayay inuu khilaafku ballaaranayo uuna gaari doono mustaqbalka gacankahada marka horta arrintaani waa arrin la malaynayey sababteeduna saan kuu sheegay waxaa iskale xukuumadda waktigeedu dhammaaday iyo madaxweynuhu waktigiisu dhammaaday oo diiday inay u hoggaansamaan dastuurka dalka u yaallay sharcigii dalka u yaallay oo raba xukunka inay sii joogaan iyaga oo aan sharciyad haysanin horna istaagay doorasho xor oo xalaala inay waddanka ka dhacdo oo hoggaanka dalku isu bedelo si nabadgelya badda labaad oo aan rabo runtii inaan xuso waxa weeyaan in la mudaharaado oo dadku mudaharaadaan waa arrin dastuuri ah inay dawladda waktigeedu dhammaaday iyo madaxweynuhu waktigiisu dhammaaday ayagoo dawladaynaya oo aan sharciyad ay dalkan ku xukumaan haysanin inay yidhaahdaan lama mudaharaadi karo waa dembi labaad wey arrintan waxay keliya u baahan tahay wixii mudaharaadahaya si nabadgelya inay usoo baxaan mudaharaadka meeshay rabeen ay tagaan hadlaan kabacdina guryahooda aadaan ayagoo nabadgelya laakiin haddii la isku dayo si sharci darraa dawlad ayaduba sharci darraa madaxweyne sharci darra ku jooga inuu yidhaahdo dadkii mudaharaadayaan hor taagaya dabcan isku dhac inuu imaanayo waa suuragal wayna u badan tahay khaladkeeda iyo gafkeeda iyo dhibaatada ka dhacdana maxamed cabdullaahi farmaajo oo ah madaxweyne waktigiisu dhammaaday asaga ayaa qofkii dhinta lagula xisaabtami doona marka anugu waxaan leeyahay aan dirayo runtaa waxa waay dad mudaharaadaya oo muwaadiniina xaq bay u leeyihin inay mudaharaadaan wadooyinka ha loo furo meeshay u socdeen ha tageen ha hadleen ayagoon cidna dilin ayagoon cidna waxyeelayn kabacdina guryahooda ha kala aadin arrinta halkaasun bay ka fududahay dadka xuquuqdooda dastuuriga oo sharcigu u ogol yahay ninkii hor istaaga asagaa dembiilo noqonay marka isku dhac hadduu yimaado maxamed cabdullaahi farmaajo oo waktigiisu dhacay oo aan madaxweyne sharciga ahayn iyo xukuumadda aan sharciga ahayn ayaa horta dembigeeda iskale waya marka ma jirtaabaa is leedahay wadooyin kale oo ay dadkan banaanbax ku dhigan karaan oo ay dawladdana raalli uga noqon karto oo ay dhibaato horseedi karo maadaama lagama rabo dastuurka waxaa ku qorani waa waadix wey wax mugdi ku jira maha dawlad lagama rabo sharci ogolaasho lagama rabo dawladda hadda jirtana dadka mudaharaadayana maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne uma aqoonsana horta saa qalbiga ku dar waa maasanta laakiin waxaa jira uma aqoonsana dadka mudaharaada maxamed cabdullaahi farmaajo laakiin hadda waxaa jira waqtigiisii waa dhammaaday sharci darru ku joogaa meesha waxaa ku xigaysaa hadduu hadda ishor istaaga in la isxabadeeyo ceeb dhacdo foolxuma dhacdo dagaalkuna madaxtooyada galo marka waxaa la rabaa arrintan dadkan inay mudaharaadaan xaq bay u leeyihiin wadooyinka ha loo furo si nabadgelya meesha u socdaan ha tageen ha hadleen guryahooda ha aadin ayaguna sharci darradooda ha ku joogin laakiin anigaa hor istaagaya oo aniga mudaharaad ma ogoli anaa hor istaagaya hadda waa waxa consequencega ama waxa ka dhalan kara waa loo jeeda waa maasanta laakiin waxaa jira amar ay dawladda soo saartay oo inaanan la yaray isu imaatanka si loo xakameeyo cudurka COVID-19 miyaanay xaq u lahayn inay ilaaliso isu soo baxyada iyo goobaha la isugu ma waxaa maalinka mudaharaadka jira miyaa laga dhigayaa qiil COVID-19 hadda laga sheekaynayo waddanka wuxuu ka jiraa muddo 1 sano ah asagoo intaan ka badan buu jiray asagoo intaan ka badan buu jiray marka maalinkii dadku mudaharaadaya in laga dhigto qiil dadka mudaharaadaya xuquuqdooda lagu dafiro sax ma ah iskooladii lama xirin masaajidyadii lama xirin dad mudaharaadayo hal saac meel joogaya in la yidhaahdo waxaa laga dhigayaa isu imaatin baa la diidaya meesha loo socdo waa la fahmaya mudaharaadka in la hor istaagaa qiil looga dhigaya marka ciidamada ammaanka waxaan leenahay qof uma shaqaysaan ummadaana u shaqaysaan oo ciidan u tihiin dadka mudaharaadaya ammaankooda inaad sugtaan baad xaq u leedihiin ma hor istaagi kartaan ka hor wareega dadkan waxa weeyaan meeshaasay imaanayaan waa hadlayaan guryahooday aadi
laakiin waxaa jira COVID-19 baa jira waa qiil aan la aqbali karin in qiil looga dhigo mudaharaad la hor istaago lamana aqbali karo. waa maasanta madaxweynaha isagoo waqtigii ka dhammaaday ayuu hadda wuxuu wadaa saxiix iyo inuu confirm gareeyo sharciyo baarlamaanka ka soo gudbay sida guddiyo taariikh horena loo yeelo sax ma tahay arrintaas mogtay inuu hadda taariikh hore uu wax ku qoro retroactive baa la yidhaha inuu taariikh hore hadda wax ku qoro waxay qiraysaa inuusan asaga laftiisu aqoonsanayn inuu yahay madaxweyne aan sharci ahayn. marka isagoon og madaxweyne aan sharci ahayn inuu maaragtay warqado oo taariikhdeeda dib u celiyey uu saxiixo waa mistake ama waa fake waa dembi waa criminality. marka waa lagula xisaabtami doonaa inuu warqado saxiixana xaq uma lahan asna waa og yahay oo sababtaasuuna warqadaha taariikh hore uga dhigaya. marka runtii meeshaan waxaa la yidhahdaa waxaa jira waxa la yidhaha cause iyo effect. cause maxaa weeye sabab iyo sababtaas wixii ka dhashay waxaa hadda taagan sababteeda maxay tahay waxaa sabab u ah madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday oo hor istaagay doorasho xor oo xalaal inay waddankan ka dhacdo. haddii doorashadii la hor istaagay sharciyadii dawladda ka dhammaatay iska horimaad iyo isku dhac inuu ka imaanayo waa wax la saadaalinayay. hadda waxaa u banaan marka hal xal baa u banaan hal labada ma banaan ciddii mudaharaadaysa ha mudaharaadda guryahooda haadeen ammaanka inay sugaan laakiin qof mudaharaad ay hor istaagaan waa dembi kalow. marka waxaan leenahay eedaha hadda laydin haysto ummaddaan idin hayso iyo dembiyada ummaddaan idin haysto wax kale wax kusii daranina dhiig ha daadinina ummaddaan ka hor wareega ciddii ha hadlaysa ha hadasho ciddii mudaharaadaysa ha mudaharaado kabacdina guryahooda ha aad ciddii wax jebisho ama ciddii wax dhagxaysta ciidanku ha qabtay laakiin dad si amniya waddada u maraya yaan la taaban. hadday diidaan soo maha eedana ayagaa iskale wixii dhibaato ka dhacda iyo wixii dad ku dhintaan ayagaa loo haysan doona. dagaalkuna inuu ballaartaa dhici karta marka dadka ammaankooda halaliyo oo isku dhac iyaan laga talin baan leenahay. kaasi waxau ahaa cumar cabdulqaadir axmed fiqi oo ka mid a musharaxiinta xilka madaxweynaha soomaaliya u tartamaya. xukuumadda soomaaliya ayaa maanta amar ay soo saartay waxay ku joojisay kulanka ama isu imaatinka dadweynaha sababtu waxay ku sheegtay in looga baaqsanayo cudurka COVID-19 oo faraba-an ku haya soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho. sidoo kale waxay dowladda ugu baaqday dadka ganacsatada ee suuqyada ku sugan iyo kuwa ganacsiga u raadsada halkaasi goobaha waxbarashada masaajidada iyo goobaha kale ee dadweynuhu isugu yimaadaan in ay ilaaliyaan badqabkooda si uusan cudurka u saameynin ama aysan dadka kale ugu saameyn. tani waxaa loo arkaa in ay saameyn karto banaanbaxa la filayo in toddobaadkan uu ka dhaco magaalada muqdisho. wasiir dubbe ayaa warbaahinta u akhriyey go'aan ka soo baxay xukuumadda gaar ahaan hay-ado ka kooban golaha wasiirada oo si gaara ugu xil saaran la tacaalidda cudurka COVID-19. waxaanu halkan u nimi inaanu fariin la wadaagno ka soo baxday xukuumadda federaalka soomaaliya dadweynaha soomaaliyeed meeli joogan. shilay isugu yimaadeen wasiirada wasaaradaha qaabilsan ka hortagga iyo xakamaynta cudurka COVID-19 oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble. warbixin dhamaystiranna lagaga dhegaystay bahda caafimaadka oo hogaaminaysa wasiirka caafimaadka wasiir fuusiya abikar nuur iyo khabiirka caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka doctor maxamed maxamuud fuuje. sidoo kalena ay tixgeliyeen baaqyada istaba joogga ah ee ka soo baxaya qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimaadiinka ganacsatada bahda waxbarashada aqoon-yahanka indheergaradka haweenka iyo dhallinyarada. isla markaana ay la tashadeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. waxa ay xukuumaddu soo saartay amaradan in la fasaxay shaqaalihii rayidka ahaa ee dalka marka laga reebo shaqaalaha mahuraanka ah ee aan laga maarmi karin ilaa amar dambe. shaqaalaha muhiimka ama koorka ama essentialka la yidhaahdo ee aan shaqada looga maarmi karin marka laga reebo shaqaalihii kale ee rayidka ahaa waa la fasaxay ilaa iyo amar dambe xaaladdu iska beddelayso. in gebi ahaanba la joojiyey isu imaatinada iyo isu ururka bulshada. inay waajib tahay in dadka ka shaqeeya meelaha aan looga maarmi karin ay qaataan afsaar ama maask. in la joogteeyo kala fogaanta masaafada dadka hadday gaadiidka tahay hadday maqaaxyada tahay meel kasta in masaafo laysu jiro.
ama goobaha shaqada kale in la yareeyo isu socodka gobollada iyo safarada laga maarmi karo in masaajidada wax goobo cibaado bulshaduna ay si joogtaa isugu timaado lagu dadaalo kala fogaan afdabool iyo nadaafadda oo kor loo sii qaado in ciidamada amnigu ay u xilsaaran yihiin dhaqangelinta go'aamadan ka soo baxay golaha wasiirada goobaha waxbarashada gaadiidka dadweynaha iyo goobaha ciyaaraha waxaa loo xakamayn doonaa si khaasa dhammaan go'aamadan waxay ku salaysan yihiin khataro iyo xaalado ay inooga warrami doonto wasiirka caafimaadka Fawziya Abikar Nuur isla markaana uu tixgeliyey golaha wasiirada gaar ahaan wasiirada u xilsaaran xakamaynta iyo la dagaalanka COVID-19 ugu dambayn aadna isu nax dadkaagana u nax ilaahay naga badbaadiyo xanuunkan COVID-19 ee soo laba kaclayay waa mahadsantiin